الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada saaxiibayaal waa casharkeeni saddexaad ee coursigeena qaybta advancedka. casharkan maanta waxaynu ku qaadan doonaa integral modelkeena sida aynu tiradiyada u qaadanayno inagoo maaragtay raacayna casharkan kii ka horeeyay oo ahaa analysiska suuqeena soo analysis gareysano oo jihadeena aynu soo helno. marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa inaynu helno jihadeena last rangegeena in aynu helno ayaynu ku bilaabaynaa. maxaynu dhahnay last rangegeena mar walba waa dhaqaaqa aynu haysano ee dhinacaas u jeeda ama dhinaca hoose u jeeda. hadba dhaqaaqa ah haysatid ayaa last range ku ah haygiisa iyo lowgiisa ayaadna maaragtay calaamadaysan doontaa. marka hal mar afwan dhaqaaqa horta marka koowaad waana soo heshaa hadda waxaan tusaalaha ku bixin doonaa dhaqaaq bay ah. dhaqaaqa marka koowaad waa inaad soo heshaa haygiisa iyo lowgiisa dhinaca uu u jeedo. hadduu dhaqaaqa bay yahay baydaas u jeesanaya waa inuu horta bulbaa ku soo yeeshaa dhaqaaqa marka ugu horeysaba haygiisi waa kaas lowgiisina waa kaas. tamaam last range-gaagi waa soo heshay hayga iyo lowga iyo dhinaca uu u jeedo. marka koowaad oo last range-gaagi soo heshid maxaa u baahan tahay pullback baad u baahan tahay in premium lagu geeyo ama in discount lagu keeno. premiumku waa markaad sell raadinaysid halkan aan tusaale selaba ku bixiyo labada dhinac aynu maaragtay wax ku qorqoran. dhaqaaqa kana hadda heshay pullback buu ku soo qaatay haygiisi waa ku ka lowgiisina waa ku kan pullback baad u baahan tahay. markii premium lagu geenayo dhaqaaq waa dhaqaaq sell inuu ku noqdo halka kan kale waxa kugu jiraya order block-gaagi ama verify gap-kaagi iyo waxyaalaha u baahneed and then suuqa waxa uga baahan tahay pullback inuu soo socdo and then premium-kaaga uu ku yimaado. markuu buy-ga aadeynaya halkan oo kale in lagu soo discount gareeyo ayaa u baahan tahay order block verify gap-ka ee wixii meeshaas kugu jiray inuu suuqa ku yimaado ama sidoo kale zone-ka sida la dhaho zone demand zone-kaas inuu ku yimaado ama zone-kaas inuu ku yimaado 1 hour or 4 hour ama weekly ama daily haba midkii maaragtay aad ku dhisaysid dhaqaaqaaga. and then markuu halka ku yimaado waxaad u baahan tahay liquidity ama liquidity-gu meelahan oo kale ku jiraysa ama kanalka meesha maaragtay dhaqaaqaaga laftirkiisa ayaa maaragtay liquidity yeelan kale oo section liquidity ayaad maaragtay samaysan kartaa ama sidoo kale hour liquidity baa meesha ku jiri kara ama equal liquidity baa ku jiri karo equal lows ah. and then liquidity-gaaga markii lagu soo qaado waxaad u baahan tahay in dhaqaaqaagii selka u jeeday oo hoos u socday waa midda saddexaad liquidity-gaaga markaad heshid oo halkan dee liquidity-gaaga ka soo heshid. midda afraad waxaa u baahan tahay in dhaqaaqaaga lagaa istaajiyo oo dhaqaaqii selka u jeeday inuu buy-kaaga istaago baad u baahan tahay. haddii dhaqaaqa kan 15 minute uu yahay oo 15 minute ku dheeraado waxaa u baahan tahay 5 minute yar in hoos lagu soo cesho and then 5 minute dib lagaaga istaajiyo. 5 minute-kaas markii dib loo istaajiyo aad halkaas ka qaadatid dhaqaaqaaga trade-kaaga oo ilaa iyo hayga aad saas ku target garaysid. marka uu selka yahayna waa sidaas la mid ah liquidity-ga lagu soo qaado and then lagu soo jibiyo 15 minute hadduu dheeraado 5 minute dib ugu noqdo 5 minute ka soo jibiyo and then lowga aad soo target garaysid. intaas un weeye shaashada chartigeenu tegi doonaa wax badan oo ku sharxi doonaa si qurux badan aan inoo ku qori doonaa. marka koowaad maxaan u baahanahay last range-geena u baahanayna soo helno 4 hour or 1 hour. marka labaad waxaan u baahanahay pullback inuu range-geenu pullback soo samaysto oo iyo nasasho soo galo. marka nasashada meeshii u baahaneen ay timaado point of interest-ga inay timaado point 5 ka hooseysa ama ka sareysa. haddaan buy raadinayno waa inay ka hooseysaa haddaan sell raadinayno waa inay ka sareysaa. intaas meel ku qoro. and then waxaa u baahan tahay liquidity inuu ku dhaco equal high equal lows oo kale ama session liquidity ama buy side in la qaado ama sell side in la qaado ama equal liquidity low yahay midkay doonaba ha noqdaan. kadib maaragtay dee liquidity-ga maxaa ugu baahan tahay liquidity-gaas waa dhaqaaqa beenguura dhaqaaqa beenguurka ah oo maaragtay liquidity-gaana waxa badanka ku shaqeysta bangiyada waaweyn iyo maaragtay shirkadaha. qofka beenguur baa loo sameyn and then liquidity baa lagu sameyn si hadhow markaas fursadda saxda ah ay u baxdo. marka dhaqaaqaas waxa la dhahaa dhaqaaq beenguur ah oo lagu diyaarinayo fursadda weeye. marka waa liquidity to the swing manipulation intaas oo dhan ayaa maaragtay magacyadooda loo isticmaalaa. market structure shift weyn ku dhaca oo dhaqaaqii laga haystaajiyaa. dhaqaaqaagu hadduu buy ahaa uu sell ku soo socday
waa in salkiisi dib lagaaga istaajiyo markii salkii dib lagaaga istaajiyo kadib ayaad bayda qaadan kartaa ay ku xisaabtami kartaa laakiin hadduu salki iska sii socdo bay kuma xisaabtami kartid marka sir shiftigaaga markuu ku dhaco laga istaajiyo dhaqaaqi ka soo horjeeday then fursadda markaa fuliso wax raadinaysaa 1 to 2 or 1 to 3 RR waan ka wadaa wax kan 1 to 2 or 1 to 3 RR maxaa laga wadaa $100 baad risk gareysay $200 baad raadinaysaa $100 baad risk gareysay $300 baad raadinaysaa intaas weeye marka percentage ahaan ayaana loo isticmaalaa mar walba 1% risk gareysid 2% raadi mar walba 1% risk gareysidna maxaa la dhahaa 3 waa raadin kartaa 2 iyo 3 wixii ka badan xoogaa 3 wixii ka badan waxay I think inay maartay yara riski tahay maadaama suuq mar walba high iyo low uu qaado oo dhinacu doon uu ku soo jeesan karo marka 3 hadaa mar gaarto 3 laftirkeeda ayaa aad u badan hadaa 3 heshidba suuqa ka dhuma maalintaas marka adeer waxaanu u gudbi doonaa saaxiibayaal qaybta chartiska kadibna waxaanu isla eegi doonaa inta halkan ku qoran oo aan afka idinka sheegay oo maaragtay muuqaal ah ama chartis ah oo maaragtay aynu isla eegi doonaa qaybteena chartiska ayaanu usoo gudubnay horta marka koowaad monthlyga iyo waxaas horta waxba aad iskugu maaragtay murjin marka aan la iska sameynaysid monthlyga waa hadba bishu markay dhalato fiiri inta wixii ka dambeysana indhaha iyo kor kala soco marka weekly-gana sidoo kale asbuuca marka uu dhasho maalin kasta oo isniin ama maalinta axad markaad analysis ka sameynaysid hal mar soo analysis gare adina dusha kala soco maalmaha kale ee suuqa daily-ga oo kale ayaa maalintii hal mar la fiiriyaa marka soo gareysid ilaa galabtii oo kale waa iska fiirin kartaa haba maarta jihadu nooca ay tahay laakiin waxa aad 100% wala socon doontaa trade-kan aynu ka qaadan doonaa 4 hour-ka iyo 1 hour-ka iyo wixii ka hooseeya marka hadda waxaan ka bilaabaynaa weekly-geena dhinaca ugu jeedo ayaynu soo helaynaa marka kadib baa maaragtay jihada kale aynu la sii soconaynaa hadda weekly-geenu baygaas buu ahaa meelaha kan waa 10keena hore saa la socota 10keena inta ku qoray way ma ka tirtirin daily-ki waxaan hoos u jeeda marka weekly-geenu waa ka bullback-tiisi baa hadda bilaabatay kanalka weekly-ge hore waa fiirinaysaa yani suuqa maalintan oo kale sel weyn baa soo dhacday marka ku xigto sel kale way sii noqon kartay marka selkiibina hadda soo noqotay sell liquidity hoose u dhawaana way qaaday ama external range oo daily ahaanana way qaaday marka hal mar analysis-ka daily-ga soo sameysanaysaa iyo weekly-ga and then waxa soo gudbisaa time frame-ka ka hooseeya marka waxaynu usii gudbinaa hadda daily-ga oo time frame analysis-ka de markii hore aynu sameynay waxa maaragtay aad ugu daahimay waa dul cararaya maadaama de ranjigan weli socdo oo maaragtay uusan istaagin ranjiga kanaynu maaragtay ku bixinaynaa tusaalaheena ranjigan baynu u baahanahay and then ranjigaaga markaa sidaan oo kale usoo heshid waa inaad heshaa point of interest-gaaga markaad heshid kadib waa inaad heshaa liquidity la qaaday hadda meeshaan oo kale muxuu liquidity qaaday liquidity meeshaan ku jiro kala buu qaaday suuqa saa u jeedid waa la liquidity gareeyay liquidity sweep baa lagu sameeyay markii halka liquidity sweep lagu sameeyo and then shiftigaagi 15 minute ilaa 1 hour ka isku ka haystay halka ka soo raacaysa and then ilaa meeshaan maadaama ay fogtahay 1-2gaaga iyo waxaas aad uga raayso maalin kasta 2% way ka badan tahay haddii maaragtay heshid bishii 20 maalin baa la trade gareeyaa 20ka maalin asbuuc 5 asbuuc 4 asbuuc weeye asbuuciina waa aragtay anahay bishu 4 asbuuc weeye 4 asbuuc 20 maalin baa la trade gareeyaa 20kaas maalin asbuuc kasta 5 bari weeye marka 5ta bari hadaa 3 maalin trade heshid oo 3da min 2% heshid waxa fadhidaaba maaragtay 6% baa fadhidaa 6ku waa lacag aad u badan marka adoo 6 fadhiya lacala waxa dhacday laba ku trade win ku noqday midna loss buu ka noqday maaragtay waxaad soo fariisanaysaa markaasna 3% baa soo fariisanaysaa marka ma xuma waa RR fiican baad qaban kartaa RR fiican ayaad qaban kartaa marka haddii hal mar ayadoo maaragtay aan ku qorayo baashatan train link camal hal mar aynu ku tusaale sida aan trade-ka u qaadanayno marka koowaad waxaan u baahanahay last range-geena ayaynu u baahanahay inaynu soo helno tamam last range-gaaga markaad soo heshid high-giisa iyo low-giisana aad cabiratid oo external range-ga ku ah external range low weeye midka kan waa hadba range-ga aad taagan tahay ku xisaabtan kan hadduu external range low ku yahay
kana wuxuu ku noqonayaa external range high-gaagi ayuu noqonayaa anigu kala qoro external range lowga iyo high-ga labadiiba waa soo heshay last range soo hela hadii lagu dhaho waa dhaqaaqii u dambeeyay hadda halkan dhaqaaqii u dambeeyay ka tuso waa kaas daily lowgi dailygan dhaqaaqana way dhaqaaqan dailyga ah oo lowgan qaaday oo lower low noqday waa dhaqaaqa kan last range-gaaga soo heshay tamam maxaa lagu dhahay last range-ga point of interest-diisa soo hel point of interest muxuu noqon karaa halkan oo kale order block baa ku jira ka dhanaa order block-gaaga xisaabso meelaha dhex wax laga yaabay in very gap sidoo kale ku jiraan gapka hagaasan xisaabso xaggaano waa inay kaaga hooseysa 0.5 ka gap box-kaaga saaranaysa waana maaragtay qiyaasanaysa waxaan ay xisaabsanaysid oo point of interest-ga meesha ay ka raadinaysid waa inay 0.5 ka hoostiisa ku noqota tamam saas markay ku tahay waxa u baahan tahay dhaqaaqa kan oo selka kugu soo socday in maaragtay hadhow laga istaajiyo tamam dhaqaaqa kan oo kale saan u soo socdaa lower high buu ku soo soconayaa lower low lower high lower low lower high hadhow isaga wuxuu ku imaan doonaa meeshaadi point of interest-gaaga u baahneed and then isaga ayaa la istaajinaya markii isaga la istaajiyo bullback buu samaysan bullbacktan meeshan laga istaajinayo ugu yaraan waa inay 15 minute ku noqotaa 5 minute waxaas maaragtay aad uga taxadar dhaqaaqsan u soo socday oo maaragtay haduu badan yahay ka badaran 5 minute ha ku celin 15 minute ugu yaraan ha laga istaajiyo 15 minute-ka ayaa wuxuu samaysan doonaa 5 minute yariisa oo saano kale hoos ugu soo socda and then 5 minute-ka laga istaajinaya 5 minute-ka markii laga istaajiyo ayaa 5 minute-ka ku soo qaadan doontaa annada hadhow maxaa ku dhacaya new 15 baadana halkaas ka dhacaya again 15 kale again 15 kale ilaa iyo inta hayga uu ka qaadayo marka meeshan oo kale ayaa waxa ku noqonaysaa liquidity ama candle meeshan yaalay oo kale ayaa la qaadaya dhowr candle oo kale maadaama waxaan hadda san u sawirano suuqa saas uma saxna suuqa caadiga line-kaasi waxaas toosan malaha waa candle isi saaran oo maaragtay laga yaabo laba ay isku dhex jiri kara midba banaan u boodi kara midba week banaan yaal noqon kara marka waxa baahan tahay in liquidity laga soo qaado kan oo kale hadda liquidity u isticmaalayna maadaama lowga dushiisa lagu soo xirmay manipulation ahaan baynu ka isticmaalnaa lacala liquidity ay halkaas ku noqotay oo liquidity waa la soo qaaday dan maxaa u baahan tahay in laga istaajiyo dhaqaaq xaggan socday ugu yaraan 15 minute iyo wixii ka badan daa ku heshin way fiican tahay 15 minute markii saa laga istaajiyo dan 5 minute soo socday waa inaad heshaa oo maaragtay 15 minute bullback-tiisa ah alakan aan brief of structure noogu qoro brief of structure baa heshay and then 5 minute baa saan oo kale kugu soo soconaya 5 minute ku halkan ayuu lacala ka bilowday meeshan kalena waa lagu istaajiyay afwan halkanna waa laga istaajinaya dhow 15 ka and 5 minute laba 5 minute buu ahaa waa la istaajiyay markii la istaajiyay kan laftirkiisa liquidity qaadayo oo kale ama ashiyanku ha iska noqdo ama wax yar oo meel ku jira laakiin kan laftirkiisa point of interest waa inuu yimaada soonka 15 minute-ka waa inuu ku yimaada oo aan 15 ka laftirkiisa laga jabin 15 ka xitaa marka heshay laftirkiisa wax xisaabsanaysaa sidii aad 1 hour-ka kuwaas u xisaaminaysay oo zoonka 15 minute-ka waa u baahan tahay 4 hour zone baa soo heshay 15 baa isku ka bedelay 15 5 minute internal ku soo socday 5 minute internal-kii wuxuu yimaaday zoonkii 15 markuu isbedelo laga istaajiyo 5 minute-ka ayaa halkaas fursadaada ka qaadan doonta adigoo target gareynaya 1 to 2 ilaa iyo 1 to 3 ama marka SL-kaagana waxaa dhiganaysaa 15 ka gadaashiisa ama 15 ka nool oo markaas maartay atariirka ku fulisay atariirka ku dhisaysid si hadii 15 kaas la jabiyo oo atariirkaasi kaaga dhamaado maadaama uu jiha kala yeeshay marka waxa raadinaysaa inta wax ka dambeeyana 1 to 2 iyo 1 to 3 hadba intii maaragtay aad u baahnayd 2 oo kale meelahan noqonaysa 3 na maaragtay kama foga hadii maaragtay external-kaas uu ku dhow yahay oo suuqu movement fiican ku jirana ilaa iyo 3-gaaga maaragtay waa ka raadsan kartaa external range liquidity-ga ayaad target garaynaysaa marka tan waxa la dhahaa sidoo kale weekly profile baa la oo suuqu markuu maaragtay 4 hour haysto oo 4 hour ku zone fiican ku tago zoonka maaragtay si fiican looga soo celiyo 4 hour-ka ilaa iyo dhaqaaq 200 oo dhaqaaqi kala hadaa heshid waa weekly profile baa la dhahaa marka kan oo kale markii halkaas la taagnaa weekly profile-kan aad haysatay intaan oo dhan waad hadii dee waxa isku ka xirnaayeen waad ka soo faa'iideysan kartid da korka tireer ka soo gashid baa leeyahay halka maalintu tago baan ka baxaya tireerkaas oo ilaa 370 bib ayay noqon lahayd marka tireerkaas oo kale waxa lahaa swing trade dadka swing traders-ka ayaa isticmaala marka sawirka kan hal mar sawir baan ka soo qaaday insha Allah Telegram-keena ayaanan
soo gelin doonaa. Marka fursadda saan ayaan fursadda ugu qaadanaynaa. Wax kale oo aan kusoo darayno ma jirto. Wax kale oo meel bannaan laga keenayna ma jirto. Waxa aan meel ka raadinayna ma jirto. Marka fursaddeena saan ayaan qaadan doonaa. Saan ayaanan u fulin doonaa. Hadduu 15ku halkan hoose yimaado waa caadi ugu yimaado halkaas asaas oo kale looga fulin. Hadduu meeshaas koro 0.5 ka laabtana sidoo kale halkaas ayaa lagu fulin. Marka yaan waxa hadalkeena ku dheereen aynu sii galno ayadoo tusaale ah. marka dheeligeena hadda waynu haysanaa motive interestiga dheeliga saas u haysataa 4 hour-ka ayaa halkaas ka soo dhisanaysa oo last range-ga dheeliga ayaa 4 hour-kana ka sii dhex raadinaysa. Marka maadaama dii 10kan iyo kii hor isku keen haysteen wax badan maartay ku wareeri mayno. last 4 hour-ka aynu haysanayo isticmaalina last 4 hour-ka aynu haysano oo aynu isticmaalinana kan ayaan ka dhigayaa oo aan fursada maartay 15ka ka dhisi doono. Marka last 4 hour-keena waa kaas ilaa dhaqaaqiisi 0.5 ka lagaga dulmaro. Markii 0.5 ka lagaga dulmaro point of interest ha lagu tago order block file file gap wixii meesha kugu jira zone kaas ha lagu tago supply zone ka ama maartay resistance-ga hadba maartay si loo isticmaalo resistance iyo support wala isticmaalaa zone demand zone supply zone order block waxa soo dhan wala isticmaalaa. Marka yaan waxba ereyada lagu badin last range-gaaga soo helaysa 4 hour iyo 1 hour marka fursadda dhisayno last range 4 hour iyo 1 hour ayaa ku muhiim maadaama intii day tahay. Hadda weekly bias-kaaga hadda week sameeyay sidoo kale week tagaysa weekly-gaaga meesha uu socdo iyo meesha aa u wado ba soo taabsanaysa. Weekly bias ma leedahay hadii lagu dhaho kale ama weekly bias ma wadata. Weekly bias-kaaga waa maaragtay week-gaaga meesha uu dada week-gaan oo kale wax la target gareynay meesha tan oo bias-ka waa la haystay inuu selb suuq ahaa. Daily-gana sidaas la mid ah oo daily-gu halkan uu maaragtay jimciye ku xirmay inta wixii ka dambeysana waxa la target gareynay maxaa la dhahaa sell side liquidity kan oo targetku meeshaas u ahaa and then waa la qaaday shalay la qaaday maantana si fiican baa loogu dul xirmay. then hadda maxaa sugaysa inta wixii ka dambeeya inuu suuqu pullback kale ku soo sameeyo. pullback markuu ku soo sameeyo point of interest sidaada iyo meelahaas lagu yimaadana laga istaajiyo suuqa and then another low saas lagu keeno saasa ku wadaysa ilaa inta last range-gaaga laga dul marayo. Hadda marka last range-geenu hadda halkan oo kale aawi last range-gu hadaynu maaragtay calaamada inoo saaro last range-gaagu haygiisa waa ka meeshaas kore meeshaas ilaa laga dilayo daily-gu yani isma soo bedeliyo aysan ahayn soo maaha halkan pullback ha keeno markuu pullback keeno pullback lower low ha keento lower low-gaas la soo dilo kana hadhow xukunka suuqa qabin ka markii la soo dilo ba korka la soo aadi kara kana target buu hadhow noqonaya markaas saasana waa lagu imaan karaa laakiin waa mustaqbal hadeer ma ahan. Marka 4 hour-kaaga ayaad maaragtay u baahan tahay maadaama intraday tahay oo yani maalin aa u baahan tahay waxa lagu kala baxo 2 saac 3 saac 4 saac kugu badato 5 saac inaad ka badanada trade ku jirin aad rabtid. Marka maxaa u baahan tahay last range-gaaga inaad soo heshid. last range-gaaga waa kan oo range-geema hore meesha ka saaray range-geebu ka saaray range-gaan oo meesha ka saaray tamam last range-gaaga waa haysataa. maxaa kale oo u baahan tahay point of interest-gi waa lagu tagay inta wixii ka dambeeysa 15 minute-ka u digaynaa 15 minute 1 hour-ka xitaa saasaad u sii fiirin kartaa 1 hour-ka iyo range-ga in lagu yimaadana saasaad u sii fiirin kartaa laakiin hadda 4 hour baynu ku sameynaynaa. last 15-kaaga markii lagu tago meesha hadda aan joogno waa meeshaan kore xagaan markii lagu tago 15-ka markii lagu tago waa in 15 minute-ka laga soo istaajiyaa waan ku dhahay waa in 15 minute-ka laga soo istaajiyaa. Hadda 15 minute-ka official-ka hadda taagaas internal buu xogaa weeyahay official-ku kan ayuu maaragtay noqon doonaa kan ayuu noqonayaa official-ku maadaama uu kan high markii hore uu keenay ka kalena uu high ku fashilmay internal uu kugu noqon karaa meelaha dhexe markii la joogo internal uu noqon karaa. Marka kan oo kale xisaabso 15 official hoos buu u jeedaa oo waa kaas pullback baad u baahan tahay marka 15-kaaga soo heshid. Marka hadda halkaasna waxaan ku dir lahaa cabirka mar walba waa inaad cabirataa 15-kaaga iyo inta uu leeyahay. Hadda 15-kan oo kale waa iska 45 bib 45 bib waa caadi in yar baa la soo celin karaa laakiin ilaa meeshaas kore 45 bib ha ka sugin meelaha kale mar uu yimaado marna ma yimaado 45 bib dhexda kale uu ka noqon karaa 20 bib uu ka noqon karaa ilaa 30 bib oo kale fursadu way iska bedeli kartaa laakiin hadduu mar 70 bib ka gaaro ama 80 bib oo kale ka gaaro 15-ku waa inaad maaragtay fursad sax ah
oo isi soo bedeshay waa inaad heshaa taasaa habboon marka maaragtay 15 ku xisaabtamaysid marka 15 kan high-ga ah ayaa strong suuq ka noqday oo suuqa la wareegay strongiga ah oo suuqa maamulaya andin maxaa u baahan tahay pullback baad u baahan tahay 15 kan meelaha lagu imaan karo oo kale zoonka 15 ka waa in isagana maaragtay sida 4 hour-ka iyo 1 hour-ka u cabiranaysid si la mid ah isagana aad u cabirataa hadda zoonkii baa lagu yimi zoonkii maxaa lagu yimi hadda halkaan oo kale pullback-teedu brokerka hadda ay isticmaalayno kama cadda yani dee pullback saxa kama aha marka dee dhaqaaqu waynu sahno isku qabsanayaa meeshan ay dameen xogaa yaraa saxa ila ma muuqato marka dhaqaaq buu ahaa 15 ka waxa moodaa halkan dhexena 15 yar baa isaguna ku jira oo mar hoos loo jabiyay and then isagii baa maaragtay pullback samaystay waa sax low buu keenay isagii baa kor loo jabiyay 15 ka hadda internalka kor u jeeda and then internalkaas hadhow markii laga soo istaajiyo ayaa u baahan hadda 15 ka maadaama halkan dhal ay ku wada dhex jiraan waa inaad maaragtay aad u kala saartaa high-gaaga iyo higher low waa inaad aad u kala saarata inta dhan isku dhaqaaq bay noqonaysaa maadaama waxaan ay isku dhex jiraan kanna de kul dhaqaaqan dhexna ma xisaabsanayno maadaama ayaguna ay ka dhalka kan kamid yihiin oo meel banaan aysan jirin ma xisaabsan doono dhaqaaqaas dhexda ku jiro dhan kana soonka inoo tagay and then last 15 kaas uu soo jabiyay last 15 ka markii lagu soo jabiyay 15 waa ku dhisi kartaa haduu 15 maaragtay 15 ka ugu yara dheeraado oo 15 kale ka hor yimaado 15 kaas waa in laga istaajiyaa oo internalka gudaha ku jira internal iyo externalka marka 15 internalka haba laga istaajiyay point of stress meesha ku jiraan waa lagu laabtay and then fursadaada soo fuli markaasaad fursadaada maaragtay ka soo fulinaysaa SL-kaagana maxaa dhiganaysaa 15 ka strongiga haduu ku dhow yahay dhigo haduu maaragtay aad kaaga fog yahay xoogaa maaragtay ugu yaraan 30 biib oo kale haduu ku jiro mid ka dhow oo internalka xoogaa yara maamulaya suuqana waa dhigan kartaa haduu dhowr iyo 10 biib ilaa meelaha isku yahay maadaama haduu SL-kaaga weynaado RR-kaaga ayaa badanaya maadaama RR-ka SL-ka lagu xisaabinay RR-kaaga ayaa ka badanaya marka inta kadib maxaa raadinaysaa externalkana waa target garin kartaa 1 to 2 gaaga qaadan kartaa ilaa iyo maaragtay 3na waad ka raadsan kartaa inkastoo fursadan news ka xigay ay aad u dhaqaaqday oo 3 iyo ka badanba ay socotay laakiin 3gaas inoogu daa marka fursada saas u dhisanaysaa kan liquidity-ga uu qaaday liquidity hadii uu taabtay kala halkan laftirkeeda waa liquidity kaas ka horeeya qaaday kan iyar buu u dhawaaday I think in 1 hour markii la tago ay halkaas liquidity saxa ka noqon karto liquidity-gana ayagana maaragtay si fiican baad iskaga fiirinaysaa 1 hour ko kale liquidity yar weeye oo maaragtay dee la soo qaaday inkastoo newsku uu aad maad u halis badan yahay kor iyo hoos labadaba midka uu doono u boodi karo marka liquidity-ga sidaas la madaxda session liquidity waa u isticmaali kartaa hadii maaragtay liquidity in high-giisa lagu qaado oo kale hadaynu fiirino session liquidity in wax liquidity session liquidity lagu sameeyay hada meeshan aan ku dhahay London high ayuu maalintaas qaaday adana de lowgaba wuxuu ahaaba aan dhahno New York baa dhaqaaqan si baxayna New York ba marka fursada duhurkaan is diyaarisay halkaasay maaragtay diyaar ka ahayd andana saasay ay ku baxday liquidity-da dhexdan ku jira xitaa laftirkiisa uu isticmaali karaa suuqa liquidity-dana waa lagu xisaabtamayana waa la qaadaa and then fursada waa lagu dhistaa marka laakiin mar walba structure-ka waa inaad marka koowaad xooga saartaa and then marka structure fiican haysatidna maaragtay ranjigaaga iyo waxaaga aad ka dhex fiirsan kartaa and then maaragtay fursadaada aad ku dhisan kartaa maxaynu adal ranjigan saanu u sii socdaa laftirkiisa hadaynu fursad kale ka sii fiirino halkan 5 minute laftirkiisa aynu ku fiirino aad baa moodaa inuu u fogaaday hal mar aynu kala saaro halka laftirkeeda 5 minute waa ku sii fiirin kartaa oo maadaama dee fursadu ay soo noqotay move weyn suuqa ku jiray sessionada ay noo furo hadaynu ka helno wax session oo liquidity lagu sameeyay ama manipulation lagu sameeyaa hadda halka kan fursadan 5 minute baa ku soo socotay lowgan hoose markay ka soo baxdo ku soo xisaabso 5 minute high low way noqonaysaa waa sax kuwan
5 minute high 5 minute low inta kasta isku jirto kan dhaqaaq maaha lama xisaabsanayo 5 minute high low high bay keentay low bay keentay high bay keentay haddana oo liquidity-gaana manipulation lagu sameeyay and then low bay keentay fursadii bay ku noqotay soo fuli marka haddii aan noo saaro calaamaddeeni shortiga ama baalkii horta marka koowaad liquidity-ga la qaaday waa ku kan waa Asian high-gaasa la qaaday waa liquidity waa nigii dhahay Asian-ka waa la qaadaa manipulation ayaana lagu sameeyaa haddana ayay fursadda saxda ay soo baxaysaa 5 minute-ka halkan ayay iska bedeshay anagu candle wax maaragtay candle kuma xisaamin doono way jiraan dad candle-da ku xisaabtama sida ICT oo kala qayb kamid ah ICT model 1 candle kaas markuu kan liquidity-ga qaado candle ka liquidity qaado hadii lagu dul xirmo halkaas ayay maaragtay laga soo tirgareeyaa candle-ku liquidity-ga qaado waa kan candle-ka ay dushiisa ma lagu xirmay ha ma lagu soo laabtay bartaas fursad ka soo firtay walaalo barta haddii ka soo fuliyo oo hadhow la iskaga ka soo socdo ka war laakiin saasaan selkaan aan soo raacay bay kala halka ka soo bixisa ay soo raacay maadaama 5 minute-kiiba kor u jeedo maaragtay saasadu isi raaca ka war si aanu hoos u aadaa 5 minute-kii kor u jeeda si hoos u aadaa 15 minute baa bullback ay ku qaadan kara 15 minute baa ilaa intaan oo kale tagi karaba marka laakiin way shaqeysaa dad ku shaqeysta way jiraan waxooda ma dhaleeleyno laakiin ayadana la soco in lagu shaqeysto laakiin marka xitaa taa hadda isticmaalaysa xitaa aad iskaga taxadar 200% marka last order block-geena waa kaas suuqa last candle intuu up aha intuu soo dhow soo aadin last candle up aha ama two candle three candle hadii waxba u dhaxayna waad maaragtay cabiran kartaa marka maxaa u baahan tahay in lagu tago order block-gaaga and then fursadaada soo fuli isalkaagana high-gii waxa dhiganaysaa 5 minute-ka hadduu yar yahayna in yar 2 bib ilaa 3 bib ka daba mari hadday kugu badato 5 bib ka daba mari laakiin 10 bib waxaas maaragtay iska ilaali ilaa uu suuqa mali hadii marba laga soo bedelay ranjiga dhamaa aad target gareynaysay ranjiga dhamaa oo maaragtay fursadda ka fulinaysa hadii la bedelo maxaa sugaysaa hadana waa lagu sii xaqiyaa weey waxa meesha isku sii dhijin marka 1 ilaa 1 fursadana way shaqeysay oo maalinta ku xigtay I think in hal asbuuc wada ahaayeen maalintan arbaaxeed marakana waa khamiis jimcihiina halkan suuqu iska warwareegay oo jimcihii fursad fiican ma uusan bixin haddaynu isniintiisa inuu kasii eeganaa fursad hadday bixi karto fursadahaynu isku daynaa inaynu dhisno 15 minute-ka ayaana mar walba maaragtay akhrinaysaa 15 haddaa lagu warteen filan timaadid 15 minute-kaaga qalso 15 minute high kan uu ku hoos xirmay logo waa sax and then 15 minute high 15 minute low high-gii halkan ayaa lagu jibiyey 15 minute high isaga jibiyey and then 15 minute low 15 minute high halka kan suuqa xogaa ka furmay low waa la bedelay 15 minute-ka hadda hoos buu jeedaa 15 minute high markii halkaa lagugu noqdo liquidity-gaaga ka dhex raaso and then trade-kaaga waad soo fulin kartaa hadda halka kan oo kale kanalada meeshan yaala equal highs-kan oo kale liquidity waa isticmaali kartaa waa la qaaday ayagii trade-kana hadii halka kan marka kana active weeye markaas oo kale waa uu ku shaqeyn karaa hadda maaragtay saas oo kale u qaadatay hadda leedahay 15 minute-kana u baahanahay oo ka kare baa sii geysanaya fursadayda si aysan ii dhaafina ayadana waa mid kale oo 15 minute markii halka lagu soo dilay oo hoos loo soo jeediyay hadana 15 minute labaad ku yimi 15 minute-kaas labaad waa uu ka badan yahay adoo maaragtay dee isalkaagana kor meeshaas kor hadda iska dhiganaysid oo maaragtay halkaas ka soo raacdid isalkaagana aad geysid 15 minute-ka maaragtay suuqa ku maamulaya kaas kor waa geysan kartaa maadaama ay isku dhow yihiin brokeradu way kala duwan yihiin midba wax ku soo saaraa laakiin hadda isticmaalano baynu maaragtay la socodsiin external range-gaaga ayaa soo target gareyn kartaa hadii 4 hour lower low ku dhow yahay ama 4 hour high high-na isagana waa target gareyn kartaa 1 to 2-gaaga iyo ka badanna waa ka heli kartaa marka isagana saasaad ula soconaysaa marka suuqu uu sii daatayba ilaa ilo hoose ayuu sii aaday oo meesha maanta uu maraya marka fursadeena saasayna u dhisaynaa marka koowaad waxa u baahanahay inuu ranjiga soo helo marka labaad waxaan u baahanahay in point of interest soo helo marka saddexaad waxaan u baahanahay in liquidity helo marka afraadna in shiftiga ku dhaco adinta fursadaada 5 minute iyo 15 minute dadwata waa ku dhisan kartaa hadda fursadan waa 5 minute fursadan ka sareysana waa 15 minute fursada halkan hoose ku sii jirtana waa 15 minute mid walbana saas baad ula soconaysaa hadda fursad kale halkan ka fiirino
oo 15 minute haddii ay fursad ku bixi karto oo fursad 15 minute ama 5 minute labadaba ah meeshaan oo kale aynu fiirino mar fursad baynu ka baaraynaa 15 minute low buu keenay and then high and then low internal baa isku bedelay maadaama high uu kor u jeeday internalku isku bedelay halkan waa laga istaajiyay and then markii laga istaajiyay xagaas fursadda waa ka qaadan kartaa fursaddu marna SL way kaaga dhacaysaa marna TB way kugu dhacaysaa fursadda markii xaggan ku soo noqotay waa qaadan kartay oo saas way kugu shaqeynaysaa tan ka horreysay inuu hal mar maaragtay halkan ma moodaa inay fursad ku jirto hal mar aynu maaragtay aan yara dul istaagaya 15 minute kaagu halkan markuu buy ka soo noqday ama kan aynu xisaabiyo meekana low keenay kana low halkan ka keenay mar walba ranjiga low keenay ama high keenay waa ina xisaabataa ranjiga kan ayaa low keenay soo maaha kan high-giisa iyo low-giisa xisaabsanaysa tamam kana high-giisa laga qaaday soo lagama qaadin 15 minute kana qaaday 15 minute kan meesha ka saaray ayaa u baahan tahay inaad hadhow isagana fursadda ka dhex fulisid isagii baa low keenay high badacunkan uu keeni waayay internal ahaan buu isku jabiyay internal ahaan markuu isku jabiyay isagii ayaa halkaas inta tan dhexe waa internal liquidity haddana waa internal liquidity meesha isku sii jirta kan maaragtay kuwan aan ku dul xirmay laakiin wax fiican ma keenin marka kaas markii laga istaajiyo dhaqaaqa saas loo istaajiyay oo bulbaa keenay bartaas fursadaada ka fulinaysa markaas oo halkaas ayaa u baahan tahay liquidity-gaaga aaway liquidity-gaaga waa kan oo dhaqaaqa hadaan maaragtay xisaabsanaysa laftirkiisa ayaa liquidity halka hoose looga sameeyay oo maaragtay sell side liquidity waxaan ku dhahay marka buy raadinaysid sell liquidity waa lagu qaadaa hadda sell raadinaysid buy liquidity waa lagu qaadaa hadda traderkii kan ka horeeyay hadii xasuusataan Asian high ayaa la qaaday and then the fursad low fursad sell ayaynu qaadanay meeshaan oo kale 15 minute internal ayaa maaragtay hadana ku kala wareegay oo 15 minute internal halkaas u jeeday kii weena waa kan suuqa maaragtay xukumayay oo 15 kii suuqa inuu xukumiyay kaas oo ahaa qaybtiisaan kora maxay ku noqonaysaa week bay ku noqonaysaa oo waa qayb maaragtay daciif ah oo la target gareynayo qaybtan hoosena maxay ku noqonaysaa strong oo waxay tahay midda awoodda markaas ku haysa strong baa ku qoran kartaa waxa ku qoran waan iska diin kartaa laakiin muhiimadu waa inaad la socotaa dusha kala socotaa marka 15 minute ka week away kana waa kii strongiga fursadu halkaas ay ka diyaarsanayd point of interest markay kugu soo noqoto order blogyadaada wixii meesha kugu jirana waad fulinaysaa fursadaada markaas oo fursad buy ayay ahayd fursadda tan oo kale asalkaaga looga dhigo oo 15 ka kala jeediyay high-gaagana 1 to 2 ama 1 to 3 maaragtay marka intaas maalinta aad raadinaysid oo muhiimka ku ah ayaad maaragtay ka raadin doontaa saas ayayna maaragtay dee fursadda u dhisanaysaa marka waxaan rajeynayaa inaad wax badan casharkan ka fahanteen oo time frameska sidaan iskugu soo xirxiray ilaa ay fursadda sida aan u fulinayno hadda halka kan oo kale haddaan fiirino bal in session liquidity ay ka dhacday anoo laftirkiisa fiirino New York low-gaana la qaaday New York low markii la qaaday ayay fursaddaas hadda halkaas ka soo baxday kan kale Asian low-gaas la qaaday Asian low markii la qaadayna fursadda halkaas ka soo baxday marka saasaad laftirkooda xitaa u xisaabsan kartaa session liquidity-ga marka liquidity-daaduna waa inay ku qeexnaadaan fursadahaaguna sidaasi la mid ah waa inay maaragtay ku qeexnaadaan waxaan rajeynayaa wax badan ka faa'iideen casharka kan sida la iskugu xirayo entry-ga time frameska horta waa iskugu ka soo xirnaadaan waxaan ku dhahay hadaaye kow waa inaad ranji heshaa ranjigaaga marka heshid high-ga iyo low-giisa waa inuu ku leeyahay ranjigaagu and then ranjigaaga point of interest waa halka kugu jiraan internal structure baasaan kugu soo soconaya internal structure markuu saan kugu soo socdo halaga istaajiyo 15 minute ugu yaraan 15 minute ka markii laga istaajiyo 5 minute baa hadana maaragtay saan oo kale 15 ka kugu soo bilaabanaya zone-ka 15 minute ka markii lagu yimaado and then 5 minute kaaga dib halagaaga istaajiyo 5 minute kaaga markii dib lagaaga istaajiyo fursadaada raadi saas isku xiro hadda maxaa ku dhahay 4 hour baad soo heshay ama 1 hour hadba midkii aad ku dhisaysid tamam 4 hour 1 hour baad soo heshay 15 minute kii baa halka ka soo horjeeda soo maaha 15 minute kii ka soo horjeeday waa in laga istaajiyaa
15 minute kaagu hoos buu usoo socdaa soo maaha oo wuxuu imaanayaa point of interest-gii aa u baahnay. Point of interest-gaagu markuu yimaado 15 kaa lagaa istaajinaya. Markii 15 kaaga lagaa istaajiyo maxaa u baahan tahay then 5 minute kaa soo horjeeday 5 minute bullbag u baahan tahay oo 15 minute zoonkiisa imaanaya. markuu saas 15 minute isna zoonkiisa u yimaado dhaqaaq walba zoonkiisa waa u xisaaminaysaa isna si khaas ah u xisaabsanaysaa. zoonkii markii lagu yimaado halkan hoose liquidity-ga waxay ka raadsanaysaa haddaad session liquidity ka heshid, haddaad equal low iyo maaragtay ka heshid liquidity-gaaga markaad soo heshid and then shift-gaaga waxa u baahan tahay 5 minute-kaaga in dib lagaaga istaajiyo. 5 minute markii saa lagaaga istaajiyo and then fursadaada fuli oo maaragtay 1 to 2 ama 1 to 3 mid aa u baahan tahay markaas ayaad ka raadinaysaa. Excelkaagana maxaa dhiganaysaa ma ku dhahay hadba ranjiga aad wax ku dhisaysid gadaashiisa ayaa dhigaysaa. hadba ranjiga aad wax ku dhisayso gadaashiisa ayaa dhigaysaa and then saasaad ranjiga u target garaynaysaa hayga ama lowga meesha aad markaas target garaynaysid. marka casharkeena waxba dheereen conceptiga guud waa intaas. maxaa la dhahaa isku dayna intaas practice ku samaysid aad charts kala tagtid wax badanna aad maaragtay ka fiirisid insha Allah ta'ala. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaa casharkeena. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. qofkii su'aal qabana Telegram-ka iyo Instagram-ka labadaba way kala soo hadli karaan. aad baad mahadsantiin.